kulankani uu qayb ka yahay kulamo hore u soo socday oo meediyada dhexdeedu ay iska wareysanayeen waxyaabaha maxaa la yiraahdaa khuseeya marxaladan kala guurka ah iyo sidii saxaafaddu ay door muuqda uga qaadan lahayd wacyigelinta bulshada haddii noqon lahayd soo xulista xildhibaanada haddii noqon lahayd dadka inay ku wacyigeliyaan oo la socodsiiyaan maxaa la yiraahdaa waxa meesha waxa way geesooda ka socda sida aan nuuxa oo ogsoonahay saxaafaddu waa indhihii iyo dhagihii bulshada waxaad moodaa anaga marka dhankeena inuu markii hore gaabis uu ka jiray oo aynu ku mashquulsaneen arrimo kale muddadii baa soo koob waxa way wax yar muddo yar oo kooban baa inoo harsan waxaanu isla garanay marka inaanu bal inagu dhexdoona is aragno maxaa inagala gudboon maxaa doora oo inooga bannaan sidee u wajihi karnaa marxaladan kala guurka ah barnaamijkan waa barnaamij masiiri oo ummadana noqosay inaga noqosay baahi inoo taala weey inaan qabashada leeyahay ka baahiyahay isweydiin mayno inaan mataqaanaa aan dhab ka yeelo inaga dhab tahay inaan sameeyno talaabadaas qaado dadkana aan ku wacyigelino si loo soo xilaa baarlamaan istaahila masiirka ummadda waxana ka bedeli waxaan xarunta BDRC ee Garowe aan ku kulanay maqaawiirta iyo saxafiyiinta Puntland oo aan runtii ka wada hadalnay kaalinta ay saxaafadda Puntland ka qaadan karto sidii baarlamaanka Puntland loogu soo xuli lahaa xildhibaano oo dareen ku hagayo halkii dadka reer Puntland marin kara meel ka duwan wadadii ay ku socdeen 20 sano la soo dhaafay kaalinta ay ka qaadan karaan doorkaas shariifka ah ayagoo aan siyaasi gaar ah iyo murashax gaar ah midna u danaynin laakiin baarlamaankaas ummadda ka dhaxeeyo ummadda matala si uu noqon lahaa baarlamaan matala ummaddaas ayaan iska wareysanay maanta qodobo runtii wax ku oolaba ka soo baxay shakhsiyan waxaan u gudbiyay dareenka kala bayr oo runtii markii horena qaar badan ay la socdeen oo ay ka soo shaqeeyeen qaybka ayaan intii kalena ay maanta si fiican isku qaadanay waxaan isla meel dhignay in dhaqdhaqaaqa kala bayr uusan ahayn dhaqdhaqaaq gaar ah oo magac leh macnaha structure gaar leh laakiin uu yahay dhaqdhaqaaq midayn kara dhammaan cid kasta oo ka shaqeynaysa goolka ah in sanadkan la helo 2019 electionka ka dhici doona Puntland in ay dadka reer Puntland soo xushaan xildhibaano marka horena dooran kara hoggaan ugu fiican oo ugu macquulsan marka dambana kula xisaabtami kara kaalinta ay saxafiyiinta ka qaadan karaan toosinta iyo wacyigelinta mujtamaca qaybihiisa kala duwan ayaan isla qaadanay